On Cable TV. ti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xog waran oo hadahan oo kale aad si toos ah uga daawataan telefishinka home cable stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada london. barnaamijkan waa barnaamij aanu ku eegno hadba qodobkii aanu isleenahay daawadayaashiina waa uu xiise gelinayaa. toddobaadkanna waxaanu ku eegi doonaa xanuunka covid-19 ama coronavirus ayaa saameyn ballaaran u geystay adduunyada oo idil. toddobaadyadii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa laisla dhex marayay xanuunkan in uu la mid yahay hergabka oo kaleeto. maxaa ka jira? sidoo kaleeto soomaalida ku dhaqan caalamka gaar ahaan magaalada london iyo waddankani britain ayaa waxa ay vaksiinka ka aaminsan yihiin aragtiyo kala duwan, iyagoo qaarkood ay aaminsan yihiin in vaksiinka uu yahay aalad jirkaada la gelinayo. haddaba maxaa ka run ah arrintaasi? waa maxay microchipkan la leeyahay vaksiinka ayuu ku jira? barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb qaadanaya marwa canab cabdalla oo ah directorka sahankeer islamarkaana ah aasaasaha sahankeer. sahankeer waa community ka dhisan magaalada london gaar ahaan xaafadda hays, waxayna caawiyaan dadyooga soomaaliyeed iyagoo u tababaro in ay dadku shaqaystaan. sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya dr saciid maxamed faarax oo ah imaamka masjidka daarusalaam ee ku yaala xaafadda south hall ee magaalada london. imaamka waa phd holder wuxuuna ku takhasusay islamic education. sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya dr maxamed cabdi aadan oo ah dhakhtar khabiir weyn ah islamarkaana ka howlgalo xarun ku taala xaafadda hays ee magaalada london. dhakhtarka waxa uu ku takhasusay caafimaadka guud, horeyna waxa uu uga soo shaqeeyey isbitaallo kala duwan oo ku yaala caalamka. wuxuuna kasoo shaqeeyey isbitaallada anagoo aanan soo koobi karin balse qaar kasoo qaadanayna isbitaal ku yaala libya, isbitaallo ku yaala waddanka holland. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka xog waran. dhammaantiin marka hore aan siiya canab cabdullaahi oo ah aasaasaha sahankeer islamarkaana kaalin weyn ka qaadatay inuu barnaamijkan xog waran qabsoomo caawo oona aanu kaga hadalno xanuunka covid-19 saameynta uu leeyahay. sahankeer waa aasaasaha sahankeer islamarkaana directorka ama maamulaha guud ee sahankeer. canab kusoo dhawaa barnaamijka xog waran, bal waxaad marka hore naga warbixin inaga siisaa annagoo waqtiga beeqaaminayno oo waqtiga cariiri inagu yahay, sahankeer waxa ay qabatay muddadii covid-19 uu jiray. bismillah, waad mahadsantahay cabdifataax iyo home cable t v. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada maxaan ku rahdaa dr adam iyo dr saciid oo qiimo weyn noogu fadhiya. waxaan rabaa marka hore inaan maaragtay aan halkan ka sheego xanuunkan maanta dunida ka dhacay ee covid-19 inuu dhibaato badan uu inagu sameeyey. wuxuu inagu sameeyey dad badan oo dadkeeniya inay wada dhinteen. guri kasta maaragtay oo maanta soomaali inay cidi ka baxday amba qof eheli uu ka dhintay. ilaahay waxaan ka baryanaa inuu intaa inagaga joojiyo marka ugu horeysa. shaqadaanu qabanay haddii aan idiin sheego markii ugu horreysay la sheegay xanuunkan march naxdin fara badan bay ahayd. waxaanu la shaqaynaa maaragtay dad dhibaataysan oo guryo jiifa oo guri kasta aanu garaacino aanu tegayno. dadka shaqaynayaana waxa weeyaan dumar soomaaliyeed oo maaragtay iyaguna hooyooyina oo iyaguna guryo ka imanaya. marka inaanu horta marka hore aanu ilaalino dumarka naftoodii oo guryey ka yimaadeen waa xoogeenii horta aanu taa ilaalinaa. qiimo weyn bay noogu fadhiday. haddana dadkaanu u diraynaana maaragtay iyaguna inay caafimaad qabaan oo dadkan inaanay xanuun u geynina ay tahay qiimo weyn bay noogu fadhiday. marka waxaanu intaa isla beegnay oonu isla qaadanay inaanu horta marka hore wacyigelin fara badan aanu horta siino maaragtay hablahayagii iyo xoogeygii noo shaqaynayay dadka tegayay kow. traininyo fara badan aanu bixinay
walow marka hore aanay maaragtay xitaa guidelineska ama wacyigelintaanu dowladda ka helaynaa ay marba isbedelaysay, haddana waxaanu aad iyo aad awoodda u saarnay horta inaanu trainingyo fara badan oo in-house oo guriga aanu maaragtay xafiiska ku train garaynayno oo maaragtay hablihii siday isku ilaalin lahaayeen aanu horta ilaalino. taasi waa mid. talabaad iyaduna qiimaha noogu fadhiday waad aragteen markii March iyo April dukaamadii oo dhan cuntadii oo dhan ba laga wada dhameeyeyba, wax kasta laga gurtay. sidaa loo dhameeyey baa loo dhamaystay maaragtay gloveski iyo bahaladii apronkii iyo wixii aanu wada isticmaalaynay oo dhan. waxaa kaloo door ka raacsanaa inaanu isticmaalno mask oo marka hore aan noogu jiri jirin xisaabta, si aanu dumarka u ilaalino iyo xooga maaragtay dee shaqo tegaya. waxaanu awoodeedii saarnay oonu shilinkeegii saarnay oonu maaragtay poundkeygii saarnay, meel kasta ha nagu qaadatee sidii aanu u heli lahayn bal horta hablaha inaanu ilaalino oonu protectionkooda siino oo waxale wixii PPI aanu siino maaragtay iyo wacyigelin. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahi wuuna ilaaliyey waanuna nabadgeliyey. ilaa haddana arrimo waa fiicayiin oo waa sax weeyaan. marka ilaahi waxaan ka baryaynaa halkaa inuu noogu wado subxaana watacaala. carab waa mahadsan tahay. Dr. Maxamed Cabdi Aadan Ansiyo markaan oo ah ka howlgala xarun caafimaad ay ku taala magaalada London oo ay dadka oo dhan wada imaadaan. Doctore waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaada qaaliga ee aadna siisay annagoo la soconno in aad shaqooyin badan ay ku yaalaan. bal marka hore innaga iyo guud ahaan ummadda ku daawanaysa waxaad u dulmartaa xanuunka COVID-19 waxa uu yahay iyo saamaynta uu leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. وما سنتها عبد الفتاح وحنا كلو أمهد علينا يا ولاجة عنب يا دكتور سعيد أو كسر قبل برنامج كان يو هوم كيبل هاد بعد نكون بعدين يا سيدنا متقنا نوقع عزمتين أما وقتي نسيسين إن أنا كلا هذا الله أما إنه كغيب قالنا دودان علميات أو لوجه الله عذر كان wuxuu bilowday sanadkii 2019 kii dabayaaqadiisii. marka arrintaas halkaas ka bilaabatay. cudurkaani dadka adduunyada lagama aqoonin. cudurkan waxaa loo maleynayaa in laga qaaday xoolaha, welibana khaasatan fiidmeerta, iyo wuxuu ku dhacaa badanka cudurka la yiraahdo shimbiraha. sidaa darteed baa waxaa la isleeyahay cudurkaasi wuxuu kasoo gudbay xoolihii wuxuuna u soo gudbay dadka. China buu ka bilowday, wuxuu soo gaaray Yurub sababtoo adduunyadu waa isu furayd. China markii uu dadkii kasoo kacay oo holiday ama loo aado ama shaqo loo aaday waxay timid in mataqaanaa westernka ama Africa ama Asia ama America meel walba cudurkii uu gaaray. cudurkaani waa cudur aad u khatarsan sida dadku wada arkayba. dadku aad bay u dhimanayaan. waxyaalo badan oo lagu arkay waxaa kamid ah calaamooyinkiisa kamid ah qandho, madax xanuun, waxaa kamid ah mataqaanaa sanka urkoo qofka ka taga, dharankoo ka taga, qandho tira badan, madax xanuun tira badan, shuban waxaa la arkay haddana inuu keenayo matag. si kastaba noqotay qofba si uu wax u yeelaa. waxaana ugu badan cudurkaani marka u horeysaba lama aqoon xataa si u gudbahayo. waxaa la ogaaday markiiba inuu arrintu tahay waxa la yidhaha aerosols ama dabayshu ay wadayso ama neeftu ay qofka gaarsiinayso, iyo adoo taabta meel cudurkaasi yaallo ama gacan ha noqoto ama mataqaanaa sanka ha noqoto. sidaa darteed ba waxaa la yidhi ilaa laga gaaro oo mataqaanaa dadku waa in loo sheega inay maaska qaataan, inay gamcaha iska dhaqaan, inay iska kala fogaadaan. waxa kastaba ha socotee waxaa bilowdatay in dad badan oo mataqaanaa aad u badan ay dhinteen, khaasatan dadka anagu aan kasoo jeedno madowga ah iyo dadka carabta ah, dadka Latin Americanka ah. sababta keentay wax yaqaana ma jiraan, laakiinse waxay u badan tahay dadkaas waxay u badan yihiin dadka front line-ka la yidhaaho. macnaha waxa weeye dadka ka shaqeeya isbitaalada, ka shaqeeya basaska, ka shaqeeya tareenada, ka shaqeeya mataqaanaa isbitaalada. dadka ugu shaqo badan bay u bataan. marka darteed dadkii waxay u bateen dadka ugu khatarsan inay ku dhaco cudurkii uu gaaro. saa darteed waxay noqotay marka in ay dhibaatadaas u gaarto. waxaa ugu daran oo la sheegaya waxay tahay cudurkaani inuu qofka immune systemkiisa uu waxyeelayo oo qofkii mataqaanaa waxa la yidhaha overdrive ama ay awooddii jirka uu iskaga difaaci lahaa inta ay cudurku ka bato uu keeno inuu isagii waxyeelo qofkii. sidaa darteed waxay gaartay in mataqaanaa qofka dhibaatooyin aan la arki jirin oo lagu arki jirin mataqaanaa cudurka fluga la yidhaho ama hargabka kale la yidhaaho aysan ahayn, oo qofka xinjir guntamayso, wadnaha wax ka gaarayaan, stroke ku dhacayo, paralysis imaanayo, urku ka tegayo. marka waa cudur aad u khatar ah. markana uuna ka xoog badan yahay ilaa 170 times buu ka xoog badan yahay, 7 times buu ka xoog badan yahay leeyahay cudurkii fluga ah, oo macnaha inuu qof kale gaarsiiyo transmissionkiisu aad buu uga xoog badan yahay kii kale. sidaa darteed waxa weeye cudurkan waa cudur khatar ah.
khaasatan dadkeena ajaanibta ah u badan waxay og yihiin inkastoo ilaahay qadarka keenay dhimashada iyo geerida waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa waxyaalaha lagu talinayo dadka lagula taliyo in lagala fogaado inaan mataqaanaa aanu sanka la xirto in mataqaanaa la istilaalo in mataqaanaa waxyaalahaas oo dhan mataqaanaa in laga qayb galo dadkeena waxaad moodaa inaysan arrintaa ka warqabinin sidaa darteed waa kuu soo noqona raalli iga noqo doctor saciid maxamed faarax markaan siiyo imaamka masjidka daarusalaam south hall doctor saciid bal waxaad marka hore inoo guud martaa xanuunkan covid 19 xanuuno la mid ah caalamka ma soo mareen xilligii taariikhdii hore islaamka الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الفتاح مركز هوري سلام قال لكم سلام يا دكتور آدم وصاحب كيان لنا قيمة بدنا آدم سلام يا ولاشن عنب وكوميونتي وحضر يد لفتر كذا ونقبتي سيجارة حلية كورونا فيروس أيضا والسلام يا يدك كدعاء إن دقيقة سنة بين الدعوانية لما تنبع وحدين حريصنا بتجري كل كنا هاتو عدان سؤال هذا كسر دوادو حنون كان xanuun la lamid ah waqtiyadii saxaabadii iyo taabiciintii xilliyadii hore aad bay ugu badnaayeen tusaalayaashu aad bay u badan yihiin marba hadaad 2 daqiiqo ay siisay waxaan jeclay hal tusaale weyn aan soo qaato xanuunkii sanadkii 18aad ee hijriga ahayd cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu ka talinayay dalalka islaamka ayaa waxaa dhacay caam la yiraahdo caam ramaada ama sanadkii dambaska waxa weeyaan magaalo la yiraahdo tuulo yar oo amwaas la yiraahdo oo baytul maqdis u dhow ayaa waxaa ka dilaacay daacuun baa ka dilaacay shuban fara badan baa dhacay dad aad iyo aad u fara badan ayaa ku dhintay bal nasiib cumar radiyallahu ta'ala anhu iyo saxaabadiisii socdaal iyo safar bay ugu socdeen ay ku gaarayaan ama ay ku galayaan shaamna waa meeshii amwaasay ku taalay ee uu ka dilaacay daacuunku kadib isagoo cumar ku sii socda magaalada ama dalka shaam oo la isku yaqaano runtii imika maaragtay Filistiin iyo Suuriya iyo Lubnaan inta la isku yaqaano ayaa waxa weeyaan saxaabigii 10 mubashiriinta kamid ahaa Cabdurrahmaan ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu ku yiri uu sheegay Abu Bakar Umar wuxuu ku yiri nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam Umarow nabigu wuxuu yiri haddaad maqashaan in wabaa ka dhacay meel uu ka dhaco ama ka dilaaco wabaagu waa xanuunka fida ama xanuunka dilaaga ah ee la kala qaado hadduu meel ka dhaco nabigu alayhi salatu wasalaam wabaa ama xanuun noocaasi dadka magaalada joogaana yaanay ka bixin dadka waxa weeye dadka dibadda kaga imanayaan yaanay soo galin dadka magaalada joogaan xanuunku ugu dhacaana yaanay ka bixin iyagoo ka baxsanaya xadiidkaasi Umar radiyallahu anhu markii ugu horeysay uu maqlab uu noqotay isagoo nabiga alayhi salatu wasalaam xadiidka markiisa qaadanaya ayuu yiri dib inoo celiya sidaas uu ku noqday Umar radiyallahu ta'ala anhu oo muu galin meesha la yiraahdo shaam muu galin xanuunkaasi ama taacuunkaasi bil buu socday xadiidkaas markaa wuxuu caddaynaya haddii lockdown ka imika la leeyahay waa la soo saaray lockdownku 2000nadii la keenay waxa weeye nabigu alayhi salaatu wasalaam yani 1440 sanadood ka hor ayuu lockdown yidhi meesha cudur ka dilaaco lockdown ha lagu soo dejiyo cidina ka bixin cidina yaanay soo gelin bil buu socday xanuunkaasi 25 ilaa iyo 30 kun oo saxaabadii iyo taabiciintii kamid ah ayaa ku geeriyooday naftoodii ku waayay saxaabigii weynaa Abu Ubayda ayaa kamid ahaa oo waliba ka dalbaday Umar inuu soo baxo waayo dee cilmi badan buu hayay isaga si gaar ah buu ugu yiri ka soo bax dabeetana Abu Bakar uu ka diiday Abu Ubayda uu ka diiday inuu ka soo baxo magaalada cudurku ka dhacay isagoo xadiidka nabiga alayhi salaatu wasalaam qaadanayo fulinaya iyo isagoo diiday inuu dadkii askarta ahaa jihaadka kula jiray inuu ka soo dhaqaaqo Abu Ubayda uu ku nafwaayay saxaabigii weynaa Muaad ibn Jabal baa ku nafwaayay saxaabigii Yaziid ibn Abi Sufyaan baa ku nafwaayay inankiisii saxaabadu markaa ilaa sodomeeye kun baa halkaa ku dhintay lockdownka xadiidkaas laga qaadanaya shariicada islaamku nadaafadda inuu ilaalino way nagu amartay in qofka bani'aadamka meel biyo xidheen oo ku kaajo diinta islaamku ma ogola waxa weeyaan in qofka bani'aadamka uu gacantiisa midig markuu istijoonayo isticmaalo shariicada islaamku ma ogola haddaynu hindhisayno oo taasina waa maaski weeyaan haddaynu hindhisaynana shariicadu waxay nagu amartay in qofka inaan hindhisada dibadda usii daynin qofka ama wax iskaga qabanno marka waxyaalahan in la leeyahay kala fogaada waxaan la leeyahay imika maask xidha waxaan la leeyahay lockdown waxaasoo dhami waxa weeyaan shariicadeena islaamka ayay sal iyo raad ku leedahay إلهي وحنا كبر يعني من قبل بعدين. محسن الدكتور سعيد دكتور محمد آدم sidaan la socono oo horeyna waxaad u sheegtay dadka maaragtay laga tirada badan yahay ama idninka loogu yeero in xanuunkan uu ku badan yahay dadkaasna ay yihiin dad front line joogo maxaa sababi karo in dadkaas ay dadka idninka ah ay saameyn badan ugu dhintaan xanuunka covid ama uu soo rito
facts oo lama hayo xaqiiqa ah sababta keentay laakiin waxyaalaha loo badinayo waxay tahay sida la sheegay number one inay tahay frontline inay joogaan sababta dadka ugu shaqo badan hadday noqoto askar hadday noqoto traffic lights hadday noqoto booliis hadday noqoto bas nin ka shaqeeya hadday noqoto staal qof ka shaqeeya qofka dukaamada ka shaqeeya dadka ugu khatar mar walba khatarta horteeda fadhiya bay u badan yihiin dadkeena marka maadaama shaqada laga shaqeeya ay tahay shaqo mataqaana qofku nolol maalmeed la raasanayo sidaa darteeda waxay noqotay xataa dhakhaatiirta dhimatay iyo nersiska dhintay waxaa weeye dadkii ka shaqeynaya istaalladay noqdeen marka arrinta ugu weyn oo hadda la leeyahay waxaa keentay taasay u badanta tan labaad waxaa la sheegay in vitamin D-gu nagu hooseeyo vitamin D-guna qorax baa laga helaa qoraxduna halkan kuma badna laakiin hadda waxaa ka socda baaris tira badan qola la yidhaaho black and Asian ethnic groups kuwa ugu badan dadka madmadow Asiaanka iyo Afrikaanka u badan yahay baa baaris lagu subinaya United waxaa wada mataqaanaa medical defense unit waxaa kula yidhaha medical GMC kula yidhaaho baa wada iyo mataqaanaa BMA waxaa British Medical Councilka iyo associationkii baa raadinayaan sababta keentay in dhakhaatiirtu iyo ajaanibta madoobi ay u dhintaan ka badan kuwa caddaanka ah marka arrintaas weli waa socotaa baaristaana waa socotaa laakiin waxaa la malaynayaa inay labada arrimood ku salaysan tahay marka laakiinse weli factskii runtaa lama hayo waase la malaynaya waayahay doctore waan kuusoo noqona aad ay u mahadsan tahay canab cabdullaahi waxaa tahay asaasaha sahankeer sidoo kale waxaad tahay directorka sahankeer waxaadna caawisaan communityga Soomaaliyeed ee ku dhaqan hays iyo nawaaxigooda wacyigelin fara badan ma u samayseen si dadka Soomaalida gaar ahaan aan la hadlayno uga feejignaadaan oo alarti ay u ahaadaan in xanuunkan ay u nugul yihiin waa mahadsantahay cabdifataax kolleyto dadka nala shaqeeya way ka badan yihiin 100 dumara Soomaaliya 100ka dumara haddaad intooda badani waa hooyooyin haddaad ku dhufato hooyadii bayna 4 caruura leedahay waxaan ka hadlaynaa ugu yareen 400 oo qof 400 oo qof oo guri inaanu isdul taagno qiimo weyn bay noogu fadhidaa inaanu tawciyad fara badan siinaa macno weyn bay noogu fadhidaa waayo waa xoog dhan hooyada halkaa joogtaa dee hooyo un iyadu shaqo tegaysa maaha waa hooyo gurigii dib u ilaalinayso gurigii dib ugu noqonayso waa inaanu ka fakernaa nafteedii ilaalinaa waa hooyo dhulkii laga doonayo inay wax ka qabato waa inaanu ka fakernaa waa hooyo iyadu tahay hooyo iyo aabbo because dadkeenni maanta single mothers bay u badan waa inaanu ilaalinaa ku xisaabtanaa marka tan maanta waxa loo baahnaa ma aha only shaqadii carara laakiin waxa loo baahnaa leadership iyo management sideebaa dadkaagii u nabadgelisaa sideebay u badbaadaan sideebay u shaqeeyaan oo sideebay maaragtay dee dadkay ugu shaqo tegayeenna awlaani guryahoodiina dib ugu noqdaan tawciyad fara badan waxaanu u furnay zoom wani dee hore u isticmaali jirin waayo trainingku wuxuu ahaa inay xafiiska yimaadaan oo la train gareeyo laakiin waxa kale kusoo noqday wuxuu ahaa maaragtay in zoom lagu train gareeyo IT-ga haddana halkaa ay ku bartaan oo lagu sameeyo ay ku qaataan wixii ay doonayeen talabaadee meesha taallaa waxa weeyaan hooyadii wax badan bay qaadanaysaa oo ay liqaysaa waxaa kaloo nuu bilownay inaanu haddana iyadii furfurno oonu mental healthkeedii iyo maskaxdeedii ilaalino oonu ugu yeedhno dasir psychologies therapies yihiin oo iyagii furfura oy u sheegaan dantoodii oo ku guubaabiya maaragtay caafiyadoodiina ilaaliya inay shaqo tagaana u sheega qiimaha ay ku fadhido maaragtay inay isticmaalaan PPE-gan iyo farahooda maydhaan oo hand sanitizers isticmaalaan waxaasoo dhan inay sameeyaan si iyaguna ay isku badbaadiyaan gurigoodii u badbaadiyaan communitygii u badbaadiyaan dadkay u shaqo tegayaanna ay u badbaadiyaan so weli way socotaa badbaadadu intaasoo qura maaha balaakiin weli tawciyadu weli way socotaa iyo maaragtay hadalku waa mahadsan tahay canab cabdullaahi waa asaasaha sahankeer iyo directorka sahankeer communityga dr maxamed cabdi aadam doctor sida aan la soconno baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan wadankan Britain waxay isla dhexmarayeen hadallo aan sal iyo raad lahayn oo ay leeyihiin COVID-19 waa sida hergab oo kale muxuu yahay farqiga u dhaxeeya hergabka iyo COVID-19 doctor bismillaahir rahmaanir rahiim horta isku mid ma ahan hergabku laftigiisu wax sahlan ma aha horta hergab waxaa la yidhaahaa waxa ku dhaca virus ku dhaca sanbabka sanka dhuunta ku dhaca marka asaga wuxuu leeyahay stages ama mataqaanaa marxalado
cudurkaanu inkastuu ula mid yahay sida uu u dhacayo dadka oo macnaha ay ka qaadayaan neefta lagu kala qaadayo ama taabashada lagu kala qaadayo waa iskaga mid halkaas laakiin waxyeelada qofka uu geysinayo waxaa xoog badan midkan hadda covidka la yidhaaho transmissionka ama isu gudbintuna waa ka sii badan tahay 10 jeer ama ka badan bay ka badan tahay dhimashaduna waa ka badan tahay 10 jeer cudurkan la yidhaaho fluga waxaa laftigiis loo soo saaray dad badan baa u dhinta 10,000 ilaa 12,000 20,000 baa loo dhiman jiray cudurkan la yidhaaho fluga ama hargabka la yidhaaho iyo cudurkan la yidhaaho covid viruska ama covid 19ka waxay iskaga mid yihiin sida ay qofka u gaarayaan macnaha neef iyo taabasho baa labadaba lagu kala qaadaa laakiin cudurkan la yidhaaho covidku waa dilaa inkastoo xataa loo dhinto cudurkan fluga ah laakiin dadka dhimanaya markaad u fiirisid dadka covidka sanadkii waxaa lagu sheegaa 11,000 ilaa 20,000 inay ka dhimato dadkan fluga dadkaasna waxay u badan yihiin dadka waaweyn badankooda waxay u badan yihiin dadka mataqaan cudurrada badan qaba laakiin cudurkan hadda waxaa la arkaa weliba noocyada badan oo hadda gadaal ka soo baxay inay dilayaan dadka inuu ka mataqaanaa ka gaarsiinta cudurka la gaarsiinayo qof kale inuu ka badan yahay 7 jeer ka badan waxyeeladiisuna ay ka badan tahay sidii la arki jiray oo ah qofka inuu dhiig guntamayo inuu wadnaha laga qabanayo 30 sano nin jiro dhalinyarada arkaysa oo ku dhacay oo wadnihii fariistay waxaad arkaysa qof stroke ku dhacay oo dhalinyaro marka cudurkaani waa ka khatarsan yahay waa ka dilmi badan yahay waxyeeladana waa ka dheeraysaa hargabka qofku ka dhaco ka rayso uu ka tagaa kani waxaa dhici karta inuu qofku waqti badan uu sii qufaco uu neeftu ay sii qabato oo dhibaato ay ku keento waxaa la yidhaaha long covid baa hadda bilowday marka cudurkaani laba cudur aad u kala duwan weeye inkastoo ay sida qofka u gaaraan ay isku mid tahay marka khatarta waxaa badan covid 19 digtoonada u baahan دكتور ومحسن تهي مركان سيو دكتور سعيد محمد فارح أو إمامك مسجد دار السلام دكتور سعيد سيدا أن لسو عنو قدهان ومدى الصوماليات كو أن كهاد لينو وقارهان كو كودخان عالمك قارهان مقالة لندن إيو ودن كان بريطان waxaan aragnaa dadkii Soomaaliyeed oo xanuunka COVID-19 qabo oo aaminsan inay qabaan hergab dadkiina banaanka u tagayo isla markaana faafinayo adigoo og inaad xanuunkii qabtid haddii aad faafisid diin islaamku maxay ka qabtaa jazaak allah khayr ma tahay ma banaana runtii haddii aad isku og tahay xanuun waliba xanuunkaasi way xanuun cid kale aad qaadsiinaysid shariicada islaamku ma ogola qofkaasi inuu soo baxo oo dadka uu soo dhex galo نبي وحي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها إمام مالك مسند كيسا كسوريي إمام مالك سوريي حاكمنا مستدرك كيسا كسوريي نبي وحي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار شريعة الإسلام كما أقولين قفك بالآذان كي إسقونا إسلبه ودبعته إسكو تورو أما يسو جيستو ين قفك بالآذان كي قفك لا دبعته وجيستو لما ضاب شريعة الإسلام قفك بالآذان كوي كان هيذي شريعة وحي ممنوع ضررك انت آنو دعين وحي لنا ضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه وحي دي شريعة الإسلام قفك بلاد كايل على الساعة إنه دبعته قفك مركه رو وقالو كدبنا وحي كايل على الساعة كلاد قال أنتهي كعاوي الساعة دي دبعته وكدعو سيدي دبعته وقبح لها وقاعدة إنه قررنا إنه ورنيسا جلب المصالح هي درء المفاسد قفك شريعة الإسلام قفك بلاد كخير ودوي وسوي شيء داوي كلا هذا الشيء دبعته أوردنا وكايل على الساعة قفك بلاد كينو دحكله أما ودح دباشه إلهينا سبحانه وتعالى كتاب كي سوحينا وشيغي وتعاونوا على البر والتقوى وحي وناغا اسكو عاويه واسكو كالميه وحي حماني وحي خردنا اسكا قبطه marka in qofka banaadinka isagoo xanuun ka qaba inuu waxa weeyaan naftiisa ay qabto oo aduu doono dawooyin qaadanaya oo waxa weeyaan culayskaasi saaran yahay inuu waxa weeyaan qofkii haddana isagii uu dabadii u soo baxo oo dadkii qaadsiiyo oo dadkii la sheekaysto aduu doono u qariyo makhaayadii kala sheekaysto aroosyadii u tago mafrash yar oo qaad lagu cunayo uu tago meel lagu isku guursanayo number badan isugu yimaadeen ama xitaa geeri ha noqotee inay iska ilaaliyo weeyaan shariicadu ma ogola waxa weeyaan ilzamu biyutakum waxa weeyaan qofka banaadinka gurigiisa xiliyadaas oo kale dhibaatooyinka ay taagayeen inuu gurigiisa laazimo qawaaniintana wuxuu ka qaadan karayo uu ka qaato caafimaadkiisana uu ilaaliyo ummadana uu u turo in iyaga laftirkooda aanay wax dhibaatay aanay gaarin waayo waa maslaxadani waa caam mujtamacina waa mujtamac isku xidhan mujtamaci hadday qaybi dhibaatada inta kaloo dhamina dhibaatadii way gaadhaysaa marka dhibaatada hadday qofkii ku dhacday oo ilaahay subxaana watacaala xanuunkaa u qadiray waxaa waajib ku ah inuu isagu isxidho
inay naftiisa uu ku koobo maqsinkiisa aanu ka soo bixin wixii daruuree shopping iyo waxyaalaha ama caafimaad inuu doonto mooyaane qofka biniaadamka inuu gurigiisa laazimo aanu meelaha ka sheekaynin baa runtii waajiba waa mahadsan tahay doctor saciid maxamed faarax imaamka masjidka daarusalaam ee south hall ee magaalada london doctor maxamed cabdi aadan doctor waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka xog waran aan ku eegayna guud ahaantiiba covid-19 iyo vaccine-ka doctor waxaa jira dadka Soomaaliyeed in vaccine-ka ay ka qabaan cabsi walwal fara badan ay ka qabaan bal marka hore vaccine-ka muxuu yahay noo sharax doctor bismillahir rahmaanir rahiim horta vaccine-ku talaalku waxa weeye ka hortag cudurkan laga hortagayo inuu dadka ku faafo qofkii uu ku dhacana uu badbaadiyo waa jirtaa hadallo badan oo soo baxay oo suuqa maraya oo sheegaya talaalku waa been talaalku waxay ku jira mataqaanaa chip baa ku jira dad baa wax ku darsaday waa lagu daba joogayaa mataqaanaa waxaa ka mid a fetal cells ama macnaha waxa la yidhaaho bini'aadanka abuurkiisa baa qof baa laga soo qaaday oo kale oo maaddaa lagu daray waxaasoo dhan waxba kama jiraan marka waa wax jira keliya waxaa kaloo dhibaato jirta oo dadku ka baqayaan maxay tahay inay sanad gudihiis in la keeno tallaal ama see loo dedejiyey taasna waxaa ka jawaabi kara waxaa la joojiyey waxaa la yidhaha red tape-ka macnaha waxyaalihii lagu dahin jiray oo dhan oo dowladuhu kamid yihiin ama shirkaduhu kamid yihiin iyo lacag badan oo la geliyey sababta mashruuca markaad adigu tallaal fikradiisa keentid inaad qabatid waxaa loo baahan yahay in la maalgeliyo maalgelintiina waa loo sahlay oo dad badan oo lacagaha haystaa bixiyey iyo dowladihii adduunyada oo dhan oo isla kaashaday waxay keeneen inay galaan dhakhaatiirta nidaamka mutacalimiinta oo researchka suubiya scientistiyaasha inay arrintaa qabtaan waana lagu wada shaqeeyey marka maadaama la yareeyey dhibaatadii iyo obstacleski ama dadkii wixii hortaagnaan jiray la yareeyey lacag badan oo la geliyey iyo iyadoo ummadoo dhan u diyaar ah ayaa waxay keentay inay yareyso waktigii la keeni jiray waxaa marka keliya oo soo jirta waxay tahay in qof walba garto talaalkan haddii aan la suubinin hadda waxaa lagu jiraa lockdown qof walbana waa ogyahay africa asia america meel walba ummadiina waa dhimanaysa horteena ku dhimanaysa ingiriiska ilaa xalay waxaa la sheegayey welibana office of national statistics waxay lahaayeen 226 kun ilaa 130 kun baa lagu sheegayey marka waxaa la garanaysaa dadka inay ku dhimanayaan dadki annaga dad noogu xiga naqaano baa ugu badan dadka dhintay waxaa la rabaa marka in cudurkaas usii fadinin ama dhibaato dadka u gaarsiinin in laga hortago شيخنا وأصحابنا نلتقي نوشيك الوقاية خير من العلاج كورتقو wuxuu ka fiican yahay daweynta marka dadka Soomaalida waxaan kula talinayaa ama asaga community ahaan inay qaataan talaalkan si looga badbaadiyo dhibaatada tan Ilaahay baa horta badbaadiyo geeriduna iyo mataqaana iyo nolosha Ilaahay baa keenay waan ognahay waana wax mataqaana qoran laakiinse dadaal iyo mataqaana sheekhu la darar wala darar hadda sheekhu sheegaya weeye qofku waxa la rabaa inuu dhibaato naftiisa u gaarsiin wixii lagala dadaalay dadaalkii lagu soo binayay inaad ka faa'iidaysatid marka waxa weeye waa talaalku waa muhiim waxa muhiim in dadku qaataan khaasatan dadka waaweyn oo loo yiraahdo la qaato dadka yar ilaa boqolkiiba qofka ka weyn kontonka sano iyo wixii ka weyn baa la ogolaadaa hadda bay maraysaa marka inkastoo la leeyahay dhibaatay keentaa wax waa dhici kartaa laakiin markii 12 milyan oo qof oo hadda ingiriiska laga talaalay ilaa hadda lama hayo dad la leeyahay oo u dhinteen marka waxaad garanaysaa inay doctor aan ka dhaxgalo dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in vaccine-kan ama talaalka covid-19 uu ku jiro microchip wax la yiraahdo oo meel walba aad marayso xogtaada la ogaanayo baltaa maxay tahay waxa ka jira ma jiraan arrintaas ma geli karto meel wax jib lama gelin karo waxaan arkay clip dadka la gaarsiinayo la leeyahay clip baa ku dhex jirta oo dad baa mataqaana xataa dhaladii oo wax ku jiraan soo sawiray wax ka jira ma jiraan jibna ma geli karto wax fetal tissue wax la yiraahdo caruurta dhiig laga soo qaaday oo lagu darayna ma jirto xaraan bay ka timid iyo xalaal weeye midna ma jirto dhakhaatiirtu iyo culimadii waa nala joogtaa hadda way sheegi doonaan waxa ka jira haweeraate ma jiraan dadkaas waa dadka mataqaana misinformation ama been abuur dadka ka raadinaya laakiin ummaddu waxaa muhiim anigan kula hadlaya waxaad ogaataan dadku dhakhaatiirta iyo dadka nurseska ah baa ugu horreeya dadka qaatay marka haddii dowladdu laynayso dadkii ka shaqayn lahaa inay dadka badbaadiyaan haddii la laayo xagee dadku ku harayaan marka waa inay gartaan waxaa la siinaya waxay tahay dadkii ka shaqaynayey baa loo hormariyey si ay u badbaadiyaan maadaama ayagu front line ka yihiin marka qof walba inuu gartaa waxa kan waa badbaado laisku dayayo
qof ilaahay baa badbaadin kara waa isku dayayaa in qofkii aan dhibaatadii la wadinin ama cudurkii sii soconin dhaqaalii baa baaba'ay iskuuladii la tegi waayey shaqadii baa yaraatay ummaddii baan isu tegaynin waalidkii baa carruurtii arki waayey marka dhibaato weyn baa jirta dhibaatadaas waxay u baahan tahay in looga baxo in lala dagaalamo si lagula dagaalami karo oo tallaalo badan oo hadda diyaar ah oo la qaadanaya in la qaato waaya waa mahadsan tahay doctor maxamed cabdi aadan waa kusoo noqonayaa markaan aan aado doctor sheekh saciid maxamed faarax oo ah imaamka masjidka daarusalaam doctor saciid waad maqlaysay doctorka waxa uu leeyahay wararka la isla dhexmaraya ee baraha bulshada waa sidoo hadalka doctorka u dhigay waxba kama jiraan diinta islaamka maxay ka qabtaa horta hore in vaccine-ka la qaato بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيد الدكتور كسفي عن برنتي وشرحي شريعه اسلامكو برتي الله سبحانه وتعالى وحو سو دجي عبد الفتاح مقاصد iyo waxa weeyaan tiirar waaweyn ay shariicadu u soo degtay inay fuliso 5 ilaa 6 tiir weeyaan tiirarka waxa kamid ah waxa loo yaqaano xifdu nafs in la ilaaliyo nafta oo la xafido mujtamaca oo waxa weeyaan wixii wax isqaadsiinaya la dagaalamo ama la iska ilaaliyo نبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث صحيح البخاري كسرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلهي مو سودك حنون إلى ولا سودك وحويا المعجيس وياهي وحويا دوذي حديث كلام شيء عندنا ويوغانس عندنا موغانس حديث كلام صحيح مسلم والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله حنون ولبا ولاي سودكيو دودي سينا وي لا سوcotaa buu nabigu aday dawadi hesho way oo lagu shubo xanuunkii ay taabato ilaahay subhanahu wa ta'ala bi fadligiisi uu daweynaya culimadu waxay isku raaceen arrimaha cilmiga ah ee qadaayagan tibbiga ah ee mutakhasiska ah in loo celiyo dadka ahlul cilmiga aqoonta u leh ahlul ikhtisaaska ah fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dadka aqoonta waxa u leh ويدي أديدان قرني أبو إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحويلي فاسأل به خبيرا وحويا دكتور هذا بايم كان يقول لك شو علماء دكتور هذا عدي قف دكتورة ومسلمة وحويا دتك الخير اللي قلت تهميه أما جروب كم ذا أي إنه قوي رعضان وحويا دوذاسي وحويا عافيمات با كتشرة نفط نوي حفديسا مجتمعنا بدباديسا أي قيب كقاضنيسا علماء ذو أرنتاس وحويا يسكر رأسينا ده مقصد كجوابيسو inay arintaasi ay fasax tahay oo xalaal tahay mar bacday naftii xifdiyayso oo waxa weeyaan ay badbaadadiina la imanayso dadka barba waxay ka horreeyaan مثلا دكتور waa mahadsan tahay jazakallahu khayr ilaahay khayr ku siiyo dad badan shariicada islaamka maxay ka qabtaa hadii aad ummadan oo meel degan aad qalqal ku abuurtid oo war been aad u sheegtid sida inuu vaccine-ka uu yahay kale microchip oo ku jiro sida doctor maxamed uu noo sheegay wuxuu yiraahday hadalkaas waa hadal aan sal iraad lahayn diinta islaamka maxay ka qabtaa in aad ummadan oo meel degan qalqal ku abuurto ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay ya ayuha alladheena aamanu dadkii iimaanka laga helayo ittaqullah ilaahay ka cabsada wa kunu ma'a saadiqiin qofku inuu run sheego وقفك مسلم كي وحويا بين إنه شيء ما هو إنه قفك بلاد وكذا يشير ورنتا وكدداله إلهي سبحانه وتعالى قل لك منافقين تا يعني سيأذق بولها لوح لم ينتهي المنافقون أديك كتشوك سوى يدك منافقين تي والذين في قلوبهم مرض يدك قلوب توضح حنون وكتشروا والمرجفون في المدينة هو إشاعات كي يورك بين تا الشيء أي الله سبحانه وتعالى سيأذق لها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دتك ما كان لقى هلايو أدوق فور بينا وهو حبك كتشرين وكولي مادو فتبينوا اسكهو بصدا روايتك آيات كانوا waxay sheegaysaa fatathabatu inuu sugnaanta warka hoos ugu dhaadhaco hoos u eega warkii lagu sheegay baad dibadda u soo saarto mushkiladeeda ay leedahay nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa ee saxiix muslim iyo abu daawud bay soo wariyeen qofka bini aadanka waxa been ugu filan inuu wax walba maqlabo ka waramo kafa bil mari ithman an yuhaddith bi kulli wax walba maqasho oo degdegaysa dad ku waranto inta sabab been kuugu filan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam baraha bulshada Abdul Fattah Hawde waa adiga media jooge walaalo bala social media soo baxay ee dadku ummaduhu waxyaalo khayr qaba kaga faa'iideysato oo cilmi fiican ku kala barato oo aqoon lagu kala ogaado oo qofka bini'aadamka horumar ku gaaro ayaa Soomaalida qayb badan oo kamidi sidii xumeed u isticmaashay oo isku iyagii ay iyo qabyaalad iyo xumaan war socda uun imika bari dhaweed waxa lagu mashquulinaa fardo maraqaba iyo saddex dumar qaba ayaa lagu mashquulaya
waa ramadaan baa soo dhawee kitaabka ilaah iyo qur-aanka kala furo akhriso oo shariicada islaamka baro oo hadda lockdown baynu ku jirnaaye maalintii hal jis akhriso oo diintaada baro oo caruurtaada diinta baro halkaynu odhan lahayn ayaa laleeyahay ba 3 buu qabaa bil 4 buu qabaa commentka dhacaya hada ma labadii wiigi ugu dambeeyayba Soomaali 80% labada nin ka sheekeynayeen ka hadlayeen waa dhibaatada iyo musiibada ay haysata xanuunkanna isaga laftarkiisa dacaayad ba suuqa loo gelinayaa waa 10kii qof baad 9 ku badbaadayaan إلهي سبحانه وتعالى شريعة الإسلام هو يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج دين هو دين يسرى ودين فضل الدي قفك كنسر كقوا كي مثربي بالصية وقاطع قفك قوا وحلصية دوين كله ثيرابية فربنا بقى يا قفك لصية أنزل وحيالك ودي دكتور كوي هاي بالصية وين قا نضحك وحنونة يا باراسيتامول بعد قاضنيسا maxaa maanta aad u diidan tahay inaad naftaadana ku badbaadisid ehelkaagana aad ku badbaadisid waxa weeyaan dawada dad baa mucaaradad baa jirta wixii wala soo baxay cusub mucaaradad jirta imka dalka Pakistan booliyo baalkii la oran jiray shirka lotfaalka loo yaqaano qabiilo badan baan qaadan dad badan baan qaadan oo tuulooyinka jooga waxay ku leeyihiin nin gaala soo sameeyay gaalkaasi waxba ku soo riday caruurahoodana iyagoo wada cagihii labay ay dhashaan berigii xanuunkan judari loo yaqaano ama small box la yiraahdo berigu soo baxay dad badan baa diiday inay qaataan meelaha wadamada Carbeed dadna waxay oran jireen war hebel dameerkiisa ku mid anaga nagu mudane dadkiis qaatayna sanadkeedna markuu soo noqday way badbaadeen qoladii qaada weydana halkaas ay ku wada socdeen marka hadii jeer aad dub taariikhda ugu noqoto waxyaalaha la isku muday cusub ee soo baxa ama vaccination kan soo baxa bar walba taariikh walba dad ku mucaarada ayaa jira laakiin muddo kadib arintaas way iska dhamaataa intii Ilaahay qorayna way ku dhimataa marka waxaynu leenahay haynu dacaayada iska deyno ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ka cabsato xaq aynu soo noqono waqtigeena aynu khayr kaga faa'iideysano ummadan niyada laga dilayo ee la leeyahay maalin walba dhakhtarada dad baa ku dhimanaya maalin walba meemka masaajidkan Daarusalaam aan joogo talaagada markay ugu yaatay 3-4 meeyda ayaa yaala oo laga cararay adii la doono oo masaajidku ka masuul noqdaan aaskiisa walays fara badan bayna haysta in marka adiga gurigaaga iska fadhiya aad dacaayad beena inta soo fadhiisatid maqsinkaaga ama qolkaaga Facebook aad tiraahdo qaadanina kana ku jira adigoon cilmi u lahayn oo dhakhtar ahayn oo aqoonteedii lahayn oo waxba waxaan ka garanayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha waxa dhici karta adiga laftarkaaga dadka dhintay uu wax ka weydiiyay waa maasan tahay anagoo soo gaarnay gabagabadii bal markaan waxaan siinayaa Dr. Maxamed aadan iyo kelmadiisii ugu dambeysay doctore maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed in maaragtay vaccine-ka la qaato in la is ilaaliyo maxaad kula talin lahayd kelmadaadii ugu dambeysay waan kaaga mahad celinaynaa doctore waqtigaad waa maasan tahay walaalahayna waa maasan yihiin Canab iyo qofna kaliya oo Dr. Saciid Ilaahay haydan barakeeyo waxaan kula talinayaa Soomaali guud ahaan Ilaahay hayna wada barakeeyo Ilaahayna xafido waxa sheekhu sheegay baana run ah qofku inuu dawada la siinayo qaato ama dhiigara daa qabtid hadaas kor qabtid haday madax laga ahayo waxunba u baahanta tan waxay kamid noqonaysaa waxyaalahaas oo kale waxa dhici karta cudurkan uusan taginin talaalkuna loo baahan doono sida fuluga loo qaato marka waxaan leenahay ka faa'iideysta waqtiga iyo kharashka la geliyay xoolaha la geliyay dadka mataqaana juhdiga badan suubiyay waxaa la idinka rabaa inaad ka faa'iideysataan idinkuna isbadbaadisaan dadkiina badbaadisaan هلا قاتو تلالك أيام كلها تلنيا أنا جاي نلها ضيا سجلت وقبيش عن قاتي هذا راح نسوق يا بيش دوس عطى إنجليزي كي كلا وحجارنا مشينا الحمد لله رب العالمين دي وحجارة أنا تيلا ما نسوق يا وحي عفمات وكاننا حدا وإلهي بأنه كان وحي متقنا جير تمادا أما دبعت تمادنا إلهي بأنه كان وحنا نسوق إنه لكن حال إن كلها تلنيا إن لقى فايدة وقتك يو تلالك dumarka khaasatan ka shaqeeya arrimahan keerka carab walaashay waxa arinta xoog saarto waxa weeye 100 gabdhood oo Soomaaliyeed oo shaqeeya hadii aadan qaadan talaalkaas qofka aad u shaqeyn doontid hada wuxuu ku oran doonaa haymaan qof aan cudur qaba inuu yimaado ma rabo ama qaadi kara waxaan ogaataan waxa kale oo jira oo muhiimsan in ay tahay hadda waxa furmay in la talaa qof walba isbaari karo cudur qab ama qabin waddan kale waxa la bilaabaya dadka in la taskareeyo halaga faa'iideysto ama shaqeynin ama cudur qab ama ha qabin qof walba la taskareeyo marka waxa fiican qof walba inuu isagu iskareeyo sababta boqolkiiba 3 saddexdu qof wada socdo qof baa qaba cudurka aan ka warqabinin marka waxa la rabaa dadku ayagoon ogeyn ba cudurka qabaanba marka waxa laga baahan yahay inay istasgareeyaan inay talaalada qaataan oo mataqaana ilaahayna tawakkala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
دكتور محمد ومهدسن تهي دكتور محمد waxa uu ka howlgalaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London xaafadda Hayes ee magaalada London waana khabiir dhanka caafimaadka doctor waan kaaga mahad celinaynaa 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo gudahood waa soo gabagabaynaynaa canab cabdullaahi ayadana waa director care sahan care isla markaana aasaha sahan care waxayna caawiyaan ay shaqo abuur iyo wax badan u sameeyaan community-yada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Hayes in waaxigeeda canab sida hadalku u dhigtay waxa dhahday 100 hooyooyin ayaan ku mideysanahay oo keerkaas aad wax bartaan membarna ka ah xubinna ka ah wacyigelin aad u sameyseen cabsi walwal intee leeg ayay ka qabaan vaccine-ka oo as leedahay maanta Dr. Maxamed iyo Dr. Saciid daawo ayay u noqonayaan hadalkooda wadmaasanta Cabdi Fataax Dr. Saciid iyo Sheekh Saciid iyo Dr. Maxamed baa si fiican bay u dhigeen waana sida la rabo maaragtay community-gu inay u dhageystaan sida also uu sheegay Dr. Adam Dr. Maxamed Adam waxa weeyaan week kasta waxaanu 100 qof waanu test baanu samaynaa week kasta waxa laga yaabaa qof iska socda inay positive noqoto dadana aan ku nidhaa gurigaaga joog asoo shaqo tagin taasi dib waxay keenaysaa dee qofkii shaqadii uu hayay inay hawsheedii maaragtay dhinacii ay noqoto dee aan weyne cid halkaa maaragtay ka shaqaysa laakiin haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyooyinkeyga nidaamka waanu isku wada hagaagsanay iyo keerkeyga marka horta taasi waa halkeeda talaalka talabaad aad iyo aad baa markii hore loo wada baqanayay laakiin psychotherapist-ka aanu keennay ee af Soomaaliga noogu hadlaysa maanta inay nala joogtayda way suuroobi weyday ayaa maaragtay walwalka iyo inta badanba ka saarto oo tidhaahda dee waxani waa wax qasab inagu tahay qaha la qaato marka haddaan imika ugu idhaahdo 50% imika in ka badan baa noo qaadatay inta kalena way qaadan doonaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waan qaatay aniguba inta xafiiska jooga wada qaateen talabaadee meesha ku jirtaa waxa weeyaan dee anakoo qura maaha sahanoo qura maaha Soomaalida inta badan ee maaragtay maanta Ingiriis ka shaqaysaa waa wada keer marka tawciyadan qudheedu sahanoo qura maaha ee waa Soomaalida amba raga noqdaan ama dumar ha noqdaan frontline-ka ku jira ama keer ha u shaqeeyaan ama home ka shaqeeyaan ama dhakhtar ha u shaqeeyaan in la wada qaato way tahay waana waajib baa anigu aan isleeyahay hadalkan ku tirkutaantaa sida doctorkiyo inoo sheegayba gidigeen way isku wada mid marka waa inaan qaadano waana inaynu hore u soconno si aynu isku badbaadino ilaah inaynoo badbaadiyo insha allahu tacaala waa mahadsan tahay anagoo soo gaarnay gabagabadii Dr. Saciid Maxamed Faarax imaamka masjidka Daarusalaam ee Sothor Sheekh Saciid ama Dr. Saciid bal kelmadaada ugu dambeysay بسم الله الرحمن الرحيم هذا الواحد لما يسين جزاكم الله خير waxaan intaa ku yara darayaa oo kaliya qofka bini'aadankii haddii wadamada reer galbeedka ee aynu joogno dadka islaamka inay maslaxadooda ilaashadaan waa arrin waajib ah marmarba waxaa lagu odhanayaa dee maxay ahayday maba qaadanayaba anu amaradan dowladda ka socda iyo waxyaalaha ay leeyihiin oo kale waxaynu leenahay culimmadu waxay isku raaceen sheekh ibnu Uthaymiin raximahullah fatwad buu leeyahay qofka haddii dalalka aan islaamka ahayn uu joogo nidaamyada iyo qawaaniinta dalalka u yaala qofka bini'aadamka wuxuu ku qasbay inuu ka soo baxo haddii sida traffic light oo kale oo ay inuu ixtiraamo waayo wuxuu yidhi inaynu ricaayadooda hoos joognaa ma wixii aan macsi ahayn inaynu ku raacno marka layna leeyahay kala fogaada marka layna leeyahay guryihiina laazima marka layna leeyahay gacmaha faraxala marka layna leeyahay dawadan waa lagu badbaaday caafimaad baa ku jira ee weliba dadkeena waaweyn ee daada 70 iyo 60 iyo 50 iyo frontline ka qaataan inay qaataan weeyaan hablaha walaalaha ee keerka ee runtii ilaahay khayran siiyay ummadda wuxuu qabanaya iyaga laftirkooda waxaan si gaar ah ugu sheegayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo isku xidhaya oo ku tawakalaya dhinacna caafimaadka ka qaadanayaan dhinacna caafimaadkii bay erbadooda ka qaadanayaan dhinacna ummaddii xanuunsanaysay bay wax uga qabanayaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhammaanteen baan hayna wada waafajiyo dhibaatooyinkana allah inaga wada badbaadiyo xanuunkana ilaahay subxaanahu wa tacaala korkeena allah ka qaado culaysa fara badan oo mid caafimaad iyo mid dhaqaale iyo nooc walba wayna fuushan yihiin ilaahay korkeena ka qaado hay naga fayda dhibaatooyinkaas oo dhan dhammaantiin bana waan idin mahad celinaya jazaakum allahu khayr guud ahaan daawadayaal barnaamijkii xog waran oo caawa gebi ahaantiiba aanu ku eegeynay xanuunka COVID-19 iyo tallaalka saamaynta uu leeyahay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey hadallo aan sal iraad lahayn baraha bulshada laysla dhex marayay ayaanu ku eegeynay barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay canab cabdallah oo ah directorka sahan care islamarkaana ah aasaasaha sahan care waana hooyo Soomaaliyeed canab waxay ku guuleysatay iyada iyo tiimkeeda in la guddoonsiiyo aweedka sanadlaha ah ee
business of the year waxaana guddoonsiiyeen NatWest 2019 sanadii 2019 sahankeer waxaan uga mahad celinaynaa in barnaamijkan taabagelintiisa xog waran caawa ay gacan weyn ka geysteen isla markaana ay nagala shaqeeyeen sidii aan ku soo casuumi lahayn dhakhaatiirta iyo culamaa diinka Canab aad ayaa u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa Dr. Saciid Maxamed Faarax oo ah imaamka Daarusalaam ee magaalada London imaamkan waa PhD holder waxaanu ka takhasusay Islamic education Dr. Saciid ama Sheikh Saciid waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaana siisay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa Dr. Maxamed Cabdi Aadam oo ah khabiir caafimaad kana soo haatanna ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala xaafadda Hayes ee magaalada London dhakhtarka waxa hore ugu soo shaqeeyay xarumo badan oo ku yaala caalamka sida wadanka Liibiya wuxuu kaloo ka soo shaqeeyay wadanka Holland isbitaallo fara badan oo ku yaala haatanna waxa uu ka howlgalaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London barnaamijka waxa idinla socodsiinayay idinna soo saaray anigoo Cabdifataax Cali Shirwa tan iyo intii aynu barnaamijka xiga kulmi doono waa bahda Home Cable TV oo isku duuban oo idinla sidaa iyo amaana Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh